السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض وديال كسو دواد برامج كديرة oo toddobaadle aad alaaba xilligan oo kale nooga barateen inaan idin ka soo baahino telefishinka TTN stuudiyihiisa magaalada Muqdisho barnaamijka toddobaadkan waxaan si guud ugu falanqeynaynaa xaaladda guud ee dalka doorashooyinka dagaalada ka socda qaybo ka mid ah gobolada iyo si guud isdiidooyinka kala duwan ee ka jira guud ahaan geyiga Soomaaliyeed waxaa barnaamijka toddobaadkan marti iigu ahaa mahadaya ka gaadhay Professor Maxamed Cumar Dalxa aqoonyahan siyaasi waayo arag wax badan oo aydan ogeyn xilligan diyaar u ah in uu idin fahansiiyo intiisii ugu badnaydna ku bixiyey u adeegida bulshada iyo waddanka Soomaaliyeed Professor Maxamed Cumar Dalxa oo mahadsan ku soo dhawow barnaamijka diiradda ee telefishinka TTN أوليد ومحسنتهاي ودوهاي adiga iyo TTN waa idin salaamaya iyo dhamaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo dalka gudihiisa iyo dibadiisa ay ka joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ما شاء الله بروفيسور محمد عمر طلحة waxaa tahay aqoonyahan waayo arag waaqici xaaladda guud ee waddanka la socda waqtigaagii ugu badnaana geliyey u adeegida dadka iyo dalka Soomaaliyeed iyo si gaar ah u qareemida bulshada intooda aan hadalkeedu meelaha fog gaarin bal si guud adoo soo koobaya xaaladda guud ee xilligan dalkeenu uu marayo dhinacyo kala duwan adoo ka eegaya waa mahadsantahay mar kale Awliid horta anigoo mar waliba jecel in mar allaale marka ay noqoto saadaal dhinaca fiican inaan qalbiga maartay ee dadka inaan heliyo aragtidaydana ay sidaasi maartay u badnaato anoo aayadda eebe laa taqnitu min raxmatillah ilaahay naxariistiisa ka go-ina oo taasi aan ka dhiganayo halqabsigayga haddana xaqiiqada iyo waxa jira waa lagama maarmaan mar waliba anagoo haddana optimistinimo oo haddana aan rabno in dhinaca khayrka mar waliba inaan afka ku haysano waxaan laga aamusi karin ee aanan laga been sheegi karin xaaladda waddanka maanta uu ku sugan yahay inay tahay mid xigmadda carabeed ay yidhaahdaan tahubu riyaaxu min xaythu laa tashtahi sufan dabeeluhu waxay ka soo dhacayaan meel aanan doonida rabin inay usii socoto siyaasaddii waddanka waxaad moodaa jaha fiican inaysan ku soconin waxyaabo fara badan ee waddanka dhibaato iyo mushkilado meel weliba maanta taagan oo hadday dagaalo yihiin hadday caqabado siyaasadeed ay yihiin oo is-afgarashawaa dadkii oo aad moodid meeshii midnimadii laga sugayey in loo dhaqaaqo wixii horay ee waddanka ee ayaga u baahnaa in lasoo maaragtay jiito in ayaga wixii kale hadda ayaaba cabsi leh ee ayaga mar waliba sida wax ay u dhacayaan marka waxyaabo fara badan oo runtii aanan jeclaysanin ayaad arkaysaa ama ha noqoto qaabka siyaasadeed ee wax ay u socdaan ama qaabka sida dhinaca amniga xaggiisa sida ay wax u jiraan sida bulshada ee xaggeeda ee ayagana ee saameyn ay ugu leeyihiin xataa midan dhaqan dhaqaale haddaan xaqiiqada runtii aanan ka leexleexanaynin waa wax runtii kulligooda u baahan dib u eegis iyo calaama su-aal mid ka hor qoran ee u baahan in dadka Soomaaliyeed sida ay wax yihiin wax ka duwan inay jeclaan lahaayeen ayadoo mar walibana dhinaca fiican aan jecelnahay xaggeeda in loo badnaado insha Allah Professor Maxamed Cumar Dalxa ayaa barnaamijka diiradda ee telefishinka TTN toddobaadkan marti inoogu ahaa inagoona xaaladda guud ee waddanka ka istaagi doona jihooyin kala duwan si aan u hogol tusaaleyno oo aan isla falanqeyno Professor Maxamed Cumar Dalxa bal xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalka uu wajahayo gaar ahaan dowladda xilligan uu garwadeenka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sida ay siyaasad ahaan dalka ay u wajahayso kula muuqata aragti ahaan waa mahadsantahay dowladda wixii juhdi iyada looga baahnaa wax waajib ah wixii ay qabatay waxa hadda laakiin ee u baahan in la saxo oo iyaga hadda ee taagan siyaasaddu waxaa jirta maanta
kala fogaansho waxaa jirto siyaasado isdiidan dalka inay maanta ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin saameyntaasina hadde intii kale qeybaha kale aan sheegay oo amni iyo bulsho iyo mid dhaqan dhaqaaleba oo ayada ay saameynayso waxaan ognahay maamul goboleedyada inay qaarkood iyo dowladda aanan isla soconin hal jiho siyaasiyiin iyagana qiimo leh oo rugcadaa ee dalka soo maamulay madaxweyneyaal ra-iisul wasaareyaal iyo in kale oo runtii aanan la dhayalsan karin inay la taagan yihiin mucaarado oo ayagana har iyo habeen ay shacabka ay la hadlayaan intabana dad dowladda ku taageera sida ay wax u wado iyo dad dowladda ka soo horjeeda sida ay wax u wado labada unbaa loo qaybsan yahay meel dhexe xataa ma jirto dad cabanaya ayaga sheeganayo in siyaasadda ayagaas iyo sida ay wax u socdaan ay ku dulman yihiin oo aniga kula hadlayo qaybtaasi aan dadka aan ku matalo aan codkooda ku hadli karo markaan meel soo istaago ay ka yihiin number 1 oo aanan ku qanacsaneen habka iyo nidaamka dowladda awood qaybsiga ee siyaasadeed ee dalka hadda ay wax ku wadaan markay ugu yar tahay awood qaybsiga waddanka maanta markaad fiirisid beelahan laysku yiraahdo beelaha shanaad oo markii horeba nus laga dhigay oo cadquureed oo ilaahay nus ayaga aanan ka dhigin oo ayaga loo dhex dhigay maaragtay si khaldan ayaa haddana ayaga dhexdooda haddana cadaalad daro laga sii dhex sameeyey beesha ugu tira iyo tayo marka la yiraahdo iyo baaxad dhuleed iyo marka la yiraahdo population ama dadeed yacni ama dhaqaalaha waddanka ee wax soo saarka ee doorka ay ku leeyihiin iyo mugga ayaga ee maanta difaaca dalka ee ayaga marka la yiraahdo oo ciidan ahaan ee ayaga ee maanta difaaca dalka ay qayb ay ka yihiin iyo waxa ayaga ee maanta lagu matalayo hadday tahay baarlaman hadday tahay xukuumad hadday tahay hay-adaha kale ee dastuuriga ah xafiisyada ee kala duwan ee wasaaradaha guddiyada madax bannaan gobolka banaadir degmooyinkiisa yacni waxaad arkaysaa ummaddani inayan dadan waxba ku lahayn ee iyaga aad moodid sida loola dhaqmayo oo haddana ay yihiin dadka ee ugu nabad jecel dadka dowladda ugu dhaga nugul dadka had iyo jeer ee ayaga soo dhoweyn badan mar allaala marka dowladdu ayada ee doonayso inay aragto dad waxa iyada markaasi ee ay doonayso inay ayada ee bulshada ka dhex muuqdaan waa dadka ee degmooyinka laga soo diriya oo la yidhaahdo kaalaya wax welbana haddana ayagoo sidaasi ah markade uma rumaysanaysaa guddiyada doorashooyinka kuma jiraan guddiyada xuquuqul insaanka kuma jiraan ilaahay kuma samadiida degmooyinka xamar hal ay iga guddoomiye ka yihiin malaha wasiirada oo dhan ee maanta ee intaasi gaaraya ee qabiilo lagu kala qaatay iyo jufo nin ayaga ah maanta hal nin oo maanta kismaayo ka soo jeeda oo beel mashunguli la yidhaahdo oo daawud aweesa ayaa maanta ku matalaya daawud beelaha jareerweyne beel ka tirsan waayo maaha jareerweyne oo dhan daawud iyo beeshiisa 20 iyo dhowr qabiilo oo sida soomaalida jilaacda ee qabaa'ilo iyo ay u kala baxaan ayaa beel welibana sidaasi laakiin waxa maanta lagu sameeyey waa wax u egta koor oo aan yacni gabasho lahayn oo haybsooc oo haba yaraatee marka loo fiiriyo wax la qarin kara aanan ahayn keliya ay ku takooran yihiin tintaasi oo ayaga adag marka siyaasad dhan ayaa waxaa lagu saleeyey nidaam qabiileed qabiil ahaanna wax ma ku qaataan ya haddii soomaali la yidhahdo jirac iyo jareer waaye xataa taasna xataa waxbay ahaan lahaydo diina wax laguma siiyo baarlamaanada ee jira oo dhan ee ayaga soomaaliya ee maanta xubin ay ka tahay oo annaga markaan ku jirnay ku matalayni oo dhan kumaba jiraan guddoomiyayaasha xataa 15 ee baarlamanka soomaaliyeed hal guddoomiye guddi kuma laha agaasimayaal baarlamaanka ee hal xaba kuma laha DG ma laha oo maanta ee la dhahay permanent secretary halkaasi u fadhiyo hal safiiray leeyihiin oo Russia joogo waa faham soomaa waxaasoo dhan kulli waxa waaye waa wax ee dadkani kiyo awalba jirtay waxaa soo baxday doorasho qof iyo cod lagu cilbeelaya sidii loo lahaa oo ayaga aan iniri isdiyaariya oo markaani waa tii waa laga baxayaaye baaxadiina iyo waxa idinka aatiin ismuujiya oo aan ololihii samaynayni fundigii meel saaran la soo dejinayo kii faryaama la soo dejinayo kii koronto gelinayo kii garaash ka shaqaynayo tii suuqa yaanyo ku gadayso wax allaale wixii ayaga ee degmooyinka xafar
dad aanan dhamayn xataa suuqa jareerta maaragtay kuwa la yiraahdo maaragtay ku nool ayaa waxaa la siiyey qoondooyin oo adiga aad la yaabtid cali jareer xamar wax kuma laha ilaah kugu dhaarshay mawlidow walaalow haddaan kaftanno ma gartaya dowladdii kacaanka wax ee guryo iyo maanta ay ku dhistay ee kumanaanka gaaraya ee xafiisyada dowladda lagu shaqaynaya ah ma rumaysanaysaa jareer weyne iyo mudulooda lagu dhisay fuundiyada xoryaamada xoryoolayaasha rinjiilayaasha kuwa wax allaala wixii technician ah iyo xamaali iyo waxaasoo dhan kuwii khaldada qasay waxaan oo dhan ayaga iska wax u qabsi lasoo bixin jiray waxa soo raaca waxay ahayd oo dowladda u dhagan nugul oo waxay la yiraahdo ayaga horay marka ay ka qaadan jireen marka soo raacaan mudulada ay ahayn weliba abgaal cismaan laba daraadle maanta walaalaheen ilaahay faraja u furay laakiin tii waa ka baxeen oo ayaga maanta waa iska xoreeyeen laakiin sidii bay maaragtay halkii bay weli marta ay taagan yihiin dulmi kale loo dhiyey ayay maanta ay ku nool yihiin ay tirsanayaan maantana waxa waaye waa markii ay islahaayeen allay laheen dadkii isla soo dhibaatooteen oo hataa idin yaqiinay ee hadday maanta ayaga aanan idin xasuusanaya idin xasuusanayo taana haddaan runtiisi kaftan aan u yiraahdo walaalaheenna warta ee soomaaliyeed ee maanta wax badan ee hadda muqdisho marka la yiraahdo dadka ay weligooda dhaqan wadaag ay ahaayeen waxay ahaayeen mudulood ma gartay marka la yiraahdo meelaha ee ayagan aan walaalaha aan nahay maanta xamar abargidar iyo mursada soo raacay soo ma ayaga weligoodaba awalba dad oo u dhagan nugul waxaa sameeyeen farooshi ahaayeen laakiin labadii baari ayaa hadda midna waxa waaye ayada ma anaga shirib waxaan maqli jirnay leedahay meel maxog ku yaala iyo madax mudulood isma mooga meel muki ku yaala iyo madax jareerna isma mooga hadda walaalaheenni waa moogaadeen dadkoodii almino aan u gar dhiganay noqonaysaa sida waxay ku socdaan mongawa xataa adiga xataa sidaan wax ka bedel madaxweyne xasan intaan la gaarin saaxiibada gadaal lagaga soo biiray barnaamijka diiradda ee telefishinka TTN ayaa daawanaysaan toddobaadkan waxaa marti inoogu ah mahad ka gaadhay Professor Maxamed Cumar Dalxa si guud siyaasadda dalka iyo xaaladaha kala duwan ee xilligan ay wajahayso ayaan falanqeynaa Professor Maxamed Cumar Dalxa 2025 ayaan maraynaa caqabada 4.5 qabaa'ilada Soomaaliyeedna waa wax mid hore u jirto wax cusub ma aha waxa maanta dareenka Professor Maxamed Cumar Dalxa iyadoo 2025 la marayo dareenkiisa taabtay ku cusub siyaasadda iyo mujtamaca Soomaaliyeed muxuu yahay waa maasantahay annaga maanta dadkii sakaxadda ka soo bilaabay burburkii dowladnimo ayaa waxaan ka ahayn safka hore ayadoo maanta dowladdii madaxweyne cabdiqaasim la hor istaagay tii ka horeysayna sidoo kale isla Djibouti oo carta ka horeysay oo madaxweyne isagana Cali Mahdi oo lagu soo caleema saaray oo ayadana la diiday waxaasoo dhan ayadoo jabhada waddanka oo ay ku dagaalamayaan dadkii u soo taagnaa waddanka aan ka bixin annagoo macallimiin jaamacad si sharaf leh ku nool dadnimadeenna iyo qadarinteennii aan haysano haddana waddankii marxalad adag markuu galayne dadkii isla sidoo kale orodka bilaabay hadday samafal tahay hadday siyaasad tahay ayaa qayb waxaan ka ahaa dadka maanta Soomaaliyeed ee la dhihi karo way arag iyo waxay u soo ahaayeen way joog wixii dhacay xilal baan ka soo qabanay dowladihii ee maanta ee wixii ka dambeeyay burburka madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf laga soo bilaabo gudoomiye ku-xigeenkooda aniga ah wasiirna ka soo noqday baarlamaanadii ee adduunka ayaan wax qayb qaar ka soo dhisay oo kii carabta oo aan matalaadna dadka Soomaaliyeed wax badan oo aan ka geysanayna dadaal ee difaaca maanta xataa waxay i gaarsiisay in blacklist aniga la igeliyo oo Nairobi tagistayda xataa maanta ee anaga xujo ay u noqotay anoona idina wax u geysanay dalkayga iyo qadiyadiisa ee aan u taagnaa ma garanaysanaysaa ilaa 16 sano aniga maanta waddanka ee maanta aan xilal kala duwan ee aan ka soo qabtay weligeyga dowladda mushkilada iimayan gadin ninkii igu sheegan karo waa joogaan dhammaan laga soo bilaabo Cabdullaahi Yuusuf waaba dhintay Allah u naxariistay laakiin ra'iisul wasaarihiisii ayaa joogo nuur cadana waa dhintay Professor Cali Maxamed Geede maalin dalxa ma jirtaa inta uu ku yimid ama adiga u garatay hal weydiyo madaxweyne Sheekh Shariif codkiisa dadkii tirinay baan ahaa anoo gudoomiye ku-xigeen koowaad ah
هلا ويدي بل قدومي كحيان كي كواد الله صار دعي حتى شيخ آدم مدوي رعديني نا أيوة ولما قد شريف حسن هو جامين أيوة وأنا ما دول من خبرت هذه كتاي شيخ آدم مدوي حدي ماشي لقى صاري موشين بالله ما شرعي هلو لي ماذا تا وحن كواي قدومي كحيان كي كواد ولا يري أرعد كاي كنت دفاعي أنا كنت دفاعي وهاي بركي شيخ آدم مدوي وحو هلي هدي أي جيران بالله ما باتورتي بالله ما أنا كتوري كرو نعم لكن أنا نعي ninkan shalay meesha aniga aan fadhiyay ayuu hadda uu ku fadhiyaayo anaan rabo inaan ka kacsado adiga si aan ninkan uga kiciyo iscazil anaga ku soo celinayna iyo maya sharci ninkan ha lagu saaro gudoomiye ku-xigeenka koowaadaan ahay motion two-third ayaa ninkan looga keeni karaa keena markaas haddaan aniga aan qaban waayo halay eedeeyo maya saas miyaa tahay waa kaaba maaragnaybo waxaa dhacday in maartay anoo jooga in la keeno odayga ee meesha ugu sareeya ugu weyn aan idhahdo daahaan xaaji shukri inuu shir gudoomiyo ee la yiraahdo ma artay haye sheekh aadanna waa la racdeeyey dalxana waa la racdeeyey ee halkaasi kii kale asagana boqor waa allah naxariista asagoo eeraan jiro ayaa waxaa la yidhi adiga iscazil waa kusoo celinayna asagana isag hadda ma artay asagana markii dambe asaga xaalkiisa ilaahay og yahay sidii asagana meesha uu oga baxay dadka dulmigaasi waxaan haddana anaga aan ku mataysanay maxaad adiga ee aad xaqa adiga aad isu garab taagaysaa oo nin kaalay nala dulmi lagu yiri aad u diidaysaa oo dulmiga haddana uma aanan joojinin mucaaradna xataa weligeyga ma noqonin waan u soo sabray waan ku soo soconnay siyaasadda ee hadba isa soo bedelaysay waa u adkaysanaynay baydhaba maanta ayaa dhibaata nagu soo gaartay jowharaan tagnay waxaan seexanaynay iskuul 20 wasiiro iyo annagoo isdhex jibno anoo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ahay ya baydhaba nalagu dhacay guryaheena wixii yaalay dhamcal baarlamaankeena oo dhan la qaatay aan naloo dhaafin dacas waa ku soo soconay waa ku soo samirnay baarlamaankii sidaasoo dhan ee dowladnimadii annaga dhismaheedii ee wax weliba loo soo dhacay haddii annaga isku day dil aan ka badbaadnay oo xildhibaano badan maanta ee god ay ugu jiraan dowladnimadeenaan inay dhisanto oo waddankeenna uu ka baxo wixii ku jira ee rafaad iyo dhibaato ee lasoo maray maanta dadkii dalka u soo taagnaay waxaa laga dhigay dad iyaga ma aragtay laga maarmay oo aan sii joogistooda iyo ku jiristooda dowladnimo xataa in la yidhaahdo 40 sano wixii ka yar ya mooyaane wax ka weyn yaanan la qaadanin in baarlaman oo xaq oo anaga aan dulmi oo wax dad ku raadinaynin inna laga reebo ayadoo oo haddana laleeyahay waxa wax lagu qaybsanayaa nidaam hadda marka nidaamkii kaasi ee hadda ee uu ahaa doorasho dadban loogu magac daray doorasho dadban waxaa la yidhi waxaa dhaantay tii odayaasha dhaqanka maxaa yeelay odayga ninkiisuba keensanayay oo qabiilkiisa wax laga rabaa qof somaa wax nidaam qabalako qabali baa wax dhisayaay ha keensado kii ayaga ay rabaan reerku odaygi waxaa la yidhi maya wax ka fiicana la sugaayo wax ka daranaa yimid si fiican doorasho dadban oo ayada ninka meesha maamulka haysto kii command village ee isaga keensanayo oo aan qabiilka shaqo ku lahayn oo aan suldaanka shaqo ku lahayn oo ogaaska shaqada aan ku lahayn oo imaamka shaqo ku lahayn ya oo malaaqa shaqo ku lahayn waxaasoo dhan waxaa kasii horeeyaa la yidhi nimankii ayaga siyaasadda isku haystay hogaama kooxeedyadii ayagaaba dadkii hubka waddanka ku haystay waaye lama yani xaqiiro kale ayaga qayb siiyo talada ayaga laakiin waxaa la isku daray genuine traditional leaders dadkii la yidhi oo dadkii asalka ah 135 oo la xulay laakiin wixii oo dhan wixii dulmi lasoo dhex galo oo wixii laga baxo lagu soo jiro maanta meeshii rajada ugu fiicneed ee laisla wada gaaray ayaa waxay ahayd doorasho dadban waa laga baxayaa tii oday ma jirayso tii hogaami kooxeed ma jirayso tii 4.5 ee Djibouti ma jirayso waxaasoo dhan tii soo daray ma jirayso qof iyo codkii waa uu ololeynay marka waxay nagu noqotay dhedar roob noqon weyday sida hadda ay wax ku bilowdeen durbadiyo axsaab siyaasadeed iyo urur siyaasadeeda la isku howlay wixii oo dhan la sameeyey kan waxaaba dhegtayna ku soo dhacaysaba reer hebel boqol iyo intaasay heleen reer qasac reer qooc waxay la siiyey 77 reer ma aragtay ee maxaa la dhihi jiray yani garas waxaa la siiyey intaasii kan si loo soo waday qolo jufo intaa wax ku qaadanaysay xagga reer ahaan ka sokow haddana ay wax ku qaadanaysay laf in beeshii maanta ee annaga jareer weyne ee la yaqaan ee xamar oo aan isleenahay marka hawiye laga yimaado yaa idinka tiro badan xaafadaha la degan yaa idinka shaqo badan yaa waxa dhaqaaqaya ee xamar maanta dhaqaajinaya ya oo haddaad maanta garaash ee farsamo lagu hayo ee mechanic iyo
howlo kale ee adduun lagu hayo bal dadka ee maanta idinkaga shaqo badan ee waddanka hala sheego haddii xoog ee xalaal lagu quutan dadka maanta ee meel walba adiga aad tagtid ee ayaga u taagan ee saraha ee xamar dhaadheer dalka dhisanayo ayaga kuma jiraan laakiin kuwa ay u dhisayaan waa iyagee xoogooday maalanayaan dadka sidaas ee daacadnimada aanan lagu sheegaynin waxyaabaha dhibaatooyinka ee badi ee haddana kuwa ee wax helay ee wax samaysanayo oo ayaga 24 saac sid bursinada raadinayo oo qaylada u taagan ee dhinac waliba ayaga ka murmayo hadda mar waxaan ku sheegay dad aanan quraacna qado iyo casho oo aan bal haysanin oo qarsan qalooc lagu hayo iyo dad ayaga quraacdii iyo qadadii iyo cashadii inta la iskugu daray oo ayaga la leeyahay way qaylinayaan oo kuwa ka san haba qayliyaana waaba dawe nimanka ee ayaga saddexda waqti ee la quudiyey maxaa ka maqan marka la yiri waxaa la yiri kuwaas waxa waaye waxaa ka maqan macmacaankiya ka maqan ma gartaya si fiican ya marka dad macmacaankii u qaylinayo iyo dad qadsan kamaaliyaadkii ya ayaa waxaa la leeyahay waxba loo qaybiyey ya si fiican arrintaasi annaga waanu cuntami weydi waxay taagan tahay marka tani waxay la mid tahay waddanka wax kuma leedin laakiin difaaciisa waa ka mid tihiin canshuur bixintiisa waa ka mid tihiin ilaahay kuma samadiidin midkii xaq baa leedin idinka dhibka waxa waaye waxaad ka tihiin number 1 laakiin dheefta wax kuma leedin